aad iyo aad baa maasanta sicidka soo qaybgalkaaga waxaa jirta dhibaatooyinka nolosheena maanta saameynaya maalinba maalinta ka dambaysa sii badanayso dhankii nolosha sicirkii iyo qaaliyowgii maciishadii qaaliyowda noloshoonuguda qaaliyowday dhammaanteen waxaynu noqonnay dab saaran oo karaya sababtuna waxa weeyaan gacmaheena ayaynu ku doonanaynaa nolosha noocaasa marka midnimo la'aanta dhaqaale ina haysata maxaa sicid adiga kaaga muuqda inay sabab u tahay faarax abdi aad baad mahadsantahay adiga iyo guud ahaanba bahday sar t v barnaamijka naga cusubteen midnimo la'aan dhaqaale run ahaantii dhulka Soomaaliya maanta ee deegaankeena aad bay uga jirtaa laakiin midnimo la'aanta dhaqaale arrinta ka weyn in iyadana la fahmo u baahan ee iyada laftirkeeda keentay waxa weeye waa midnimo la'aan ummadeed weeyaan ummaddu in maanta ay midnimo la'aan ummadeed weyday waxa sabab oo hadda waxa weeyaan ummad walba waxay ka kooban tahay 5 qaybood shanta qaybood ummad walba ay ka kooban tahay waxa weeyaan qayb ilaahay ku manaystay cilmi iyo xikmad oo aad moodo in oo inta badan ku haboon inay ummadda u taliyaan qayb la talisa qayb lagu tashaday iyo qayb loo taliyo afarta qayb marka laga tago waxa soo hadha qayb shanaad oo iyagu ah kuwa laga tashado kuwa haddaba laga tashado waa sababta looga tashanayo inta badan loo fogeynaya ayaa ah inay yihiin dad ku sifaysan aragti xumi oo fikirka ay aaminsan yihiin ummadii iyagu ay ka dhashay ay ka aaminsan yihiin oo xun kow laba cilmi la'aan iyo xikmadda oo aad ugu yar taas waxay keenaysaa mar walba in ay dhaqaalihii ummadda wax loogu qaban lahaa haday tahay haddii midnimadii guud ee ummadda la isugu keeni lahaa haday tahay in ay aad iyo aad ma taqaana ay lid ugu yihiin sababtaas keentay in loo fogeeyo oo horta laga tashado haddaba qaybtii laga tashan jiray ummadda darajada kuwooda ugu hooseeya ahaa ayaa maanta waxay fursad u heleen inay fagaarayaasha dhaqaalaha fagaarayaasha dhaqanka fagaaraha siyaasadda hogaaminteeda intaba maanta inay ay aad iyo aad soo farageliyaan taana waxaa fursad u siiyay inay ku dhiiradaan waa shacabkii oo haba yaraatee waxyaabihii lagu talagalay ka bulsho ahaan inay ceebayaan oo ay fogeeyaan soo dhaweynaya inta ay shacabku dad iyaga noocaas oo kale og yihiin in ay ummadda iyo midnimadeeda iyo diinteeda dhaqankooda ay macnaha halis ku yihiin shacabku xaggii laga rabay inay fogeeyaan inta ay arkaan kooxdaas inta shacabku soo dhaweyn iyaguna way ku dhiiranayaan inta in ka badan inay baabiyaan hadda markaan imaado qodobkan ah midnimo la'aanta dhaqaale ummadda haysataa waa arrin jirta oo dhaba weeyaan midnimo la'aantu waa meesha keliya ee ummadda ay ka dinto haddii ummadda ay midoodaan waa meesha ay ka istaagto in la isku turo haddaba oo haddaba si marka dhigta uu sheegayay Yusuf in tusaale ahaan budget la raacayo oo kale haddii uu qof si lagu talagalay lagu raacayo 5 riyaal ku lacag badan haysta intuu yimaado haddii uu 100 riyaal u bixiyo oo dadkii shacabka loo danin waayo xagga waxaad ka garan kartaa lacagtii iyo dhaqaalihii ummadda inuu gacanta u galay shakhsiyaadkii aan ka sheekeynay ee qaybta shanaad ahaa kuwii laga tashan jiray marka ka bulshahan waxa loo baahan yahay si wada jir ah in loo ceebeeyo loo fogeeyo looga dhex saaro dhaqanka siyaasadda iyo fagaarayaasha ummadda midnimadeeda iyo kobaceedaba qayb ka qaadanaya inta ay kooxaasi fursad u helayso in ay og yihiin shacabku inaynan hadday musuq tahay hadday tahay nidaamka ummadda dhibaatada ku odhan inaysan shacabku aynan ceeb u arkin iyaguna waxay ku dhiiranayaan tallaabo kastoo ay ummadda ku dhibaateyn karaan way maxaa ku midnimo la'aanta dhaqaale maanta haynaysta maxay keentaa silada midnimo la'aanta maanta ummadda Soomaaliya haysta waxay keentay in maanta koox loo kala fadhiisto hadday tahay siyaasad in maanta dhaqaalihii iyo dadkii Soomaaliya la rabay intii ganacsatada inay isku yimaadaan ay iyagii isku dayaan mid kale inuu baabiyo in shacabkii ay la kala saftaan mid ay filayaan in uu macnaha amarar ahaan ay ku raacaan ama ay dhaqaale ay ka helayaan oo dantii guud total meesha ay ka baxdo dadku inay u qaybsamaan sector ilaa qayb ilaa ay marka dambe shakhsi midaas sababta